أفلح أقون ديغايو معالين انتي أمدنيد أذا مريه هذا أفلح أقون ديغايو انتي أمدنيد هذا مريه أماني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawada ku soo dhawo barnaamijkeena maanta. barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay runtii 5 qodob aad u layaab badan. gabadh Australiana oo runtii neeras ahayd ayaa waxay joogtay dhakhtar bay joogtay. dhakhtarkaas waxay ka sii mas'uul ahayd qaybta runtii dadka xaaladooda aad u xun tahay ayna dhintaan ku dhow ee dhimashada u dhow ayaa mas'uul ka ahayd qaybtaas. gabadhaasa waxay u fiirsatay dadkan sii dhimanaya bal waxay ka fikirayaan. dadkan sii dhimanaya waxa maskaxdooda ku jira ay tamaniyayaan ay jeclaan lahaayeen inay sameeyaan intay noolaayeen ayay aad u baadhay. waxay u koorgashay dadkan dhimanaya ee isbitaalka jooga bal waxa isleeyihiin waxaasaa idinka maqnaa oo haddii markii aad nooleedeen aad samayn lahaydeen maanta aad ku farxi lahaydeen. research bay ku samaysay kadib markii dambena buug bay soo saartay. buug aad u layaab badan oo caalamka runtii aad ugu faafay oo la iraado the top 5 regrets of the dying. 5 shay ee ay ka murgoodeen dadkii dhintay. waa 5 shay oo dadkii dhintay ay aad uga murgoodeen. waa gabadhaasi markay dadkaa eegtay markay dhimanayeen 5 shay ee ugu weynaa ee ay ka murgoodeen ay yiraahdeen intaan adduunka joognay 5 shay haddaanu samayn lahayn 5 shay haddaanu ka tagi lahayn aad bay wanaagsanaan lahayd. 5 shay talow maxay yihiin? ma lacag maad urursataan bay ahayd? ma guryo inaad dhisataan bay ahayd? ma inaad muxuu ahaaye in reero fiican iyo xaas qurux badan guursatay ahayd? midna intaa ma ahayd. maxay ahayd? kow waxay ka murgoodeen dadkii dhintay. qodobka koowaad ay ka murgoodeen dadkaasi wuxuu ahaa wax weeyaan inay aad uga fikiri jireen dadka kale. waxay yiraahdeen waxaanu ka murgoonay in noloshii intii aanu joognay aan aad uga fikiri jirnay dadka kale rayga naga qabaan, dadka kale siday noo arkaan, dadka kale waxay naga aaminsan yihiin annagoo tahdix gelinayna inaan siday dadkaasi ay rabaan aan u dhaqmi jirnay taawanu ka murgoon. waxaanu jeclaan lahayn bay yiraahdeen noloshada sidaan anagu jecla inaan u noolaano, sidaan anagu jecla inaan u dhaqanno oo laakiinse aanan tixgelin dadka kale maxay kaa qabaan, dadka kale siday ku arkayaan. waa masalada koowaad ee dadkaasi ay ka murgoodeen. waxay ka murgoodeen fikirkay dadka kale ka qabaan iyo siday u tixgelinayeen. hebel muxuu kaa yiri? heblaay quruxdaada maxay ka sheegtay? hebel quruxdaada siduu u arkaa? waxa ay siday dadka kale noo arkaan inaan runtii arinta ku mashquulno oo fikirkeega uu ku mashquulno oo markasta aan ka fikirno dadku siday noo arkayaan. arintaasi waxay noqotay arinta koowaad ay ka murgoodeen oo yiraahdeen arinta inaan dadka inaan iskuma mashquulino ma ahaynba. dadka inaan isku mashquulino iyo siday noo arkaan mabay ahaynba. waxay nolosheeda anagu sidaan u aragna inaan noolaano. taasi waa tii koowaad. talabaad ay ka murgoodeen waa maxay? talabaad ay ka murgoodeen waxa weeyaan inay dareenkoodii ay sheegi kari waayeen iyagoo ka cabsi qaba dad kale inay ka cadhoodaan. waxay yidhahdeen waxaanu ka murgoonnay inaan wixii dareenkayagiiyo shucuurteedii wixii nagu dhex jiray inaanu sheegi kari weynay markaanu noolayn. sababtu maxay ahayd? waxaan sanay dadkaa idinka cadhoonaya, dadkaa idinka tagaaya, dadkaa idinku muxuu ahaaye oran doona waxun idinku oran doona. marka anagoo dareenka dadka tixgelinayna ayaa maxaa dhacay inaan anagu dareenkaygii sheegi kari weyno. qodobkaasna wuxuu noqday qodobkii labaad ee gabadhaasi ay kitaabkeeda ku qortay. ay tiri waa shaygii labaad ay ka murgoodeen dadkii dhimanayay oo yiraahdeen inaan dadka kale dareenkoodun eegno, dadka kale inay cadhaysay inaan ka fikirno oo anagu taydii ilowno oo dareenkayga ilowno. arrintaasna qalad bay. waxay dareenkayga inaan cabirno. qofkii cadhoonaya ha cadhoodo, kii farxaya ha farxo. inaan dareenkayga ciyaarno oonu cabirno
oon runtii muxuu ahayey in siday tahay aan u noolaano ayay ahayd laakiinse qof kale inaan tixgelino hebel baa kaa cadhooni hebel baa arrintaa kugu sameyni hebel baa sidaa ku orani arrintaa tixeeda in dareenkaygu anaga nagu dhex gubto oo qalbiga ku dhex gubto arrintan way ka murgoodeen daawade qodobka saddexaad ay ka murgoodeen waxa weeyaan dadkaa dhimanaya ay sheegeen inay ka murgoodeen waxa weeyaan aanay ogeyn sacaadadu inay iyaga guntooda ku jirto oo markasta sacaadadii raaxada ay ka raadinayeen wax ka baxsan naftooda waxay yidhahdeen sacaadadu anaga nagu dhex jirtaa anaga ayaa naftayda saciid ka dhigi karnaa laakiinse markasta sacaado waxaanu ka raadinayn wax kaloo anaga naga baxsan lacag baan sacaado ka raadinaynay madaxtinimaan sacaadii raaxo ka raadinaynay jacayl baan ka raadinayna muxuu ahay sacaado taasi waxay nagu keentay weliga inaan sacaado u raadino ila ma gaadhi side sacaadada waad raadinaysaa waa daba socotaa on idin way kaa ordaysaa laakiinse ma aanan ogeyn sacaadaduba inay gunteeda ay ku jirto waana sida xaqiiqada ah sacaadada qofka guntiisay ku jirtaa haddii aada maantadaa aad haddadaa la taagan yahay haddaad dikri fara badan samayso oo ilaahayd xusto sacaadaad helaysa uma baahnid inaad dibadda wax ka raadiso haddaad qur-aan badan akhriso saacadaad helaysa haddaad salaad fiican jaamacad tugto sacaadaad helaysa haddaad salaatuleel keliya tukato sacaadaad helaysa waa sacaadada wax adiga gunta adaa samayn kara laakiinse lacag baan raadinaya fanaan baan noqonayaa heesaa baan noqonaya shuhriya caanimaan raadinaya madaxtinimaan raadinaya si aan sacaadai raaxo u helo taas ma soconayso wax kaa baxsan inaad sacaada aad ka raadiso ma dhici karto sacaadada guntaaday ku jirtaa adiga guntaaday ku jirtaa adigu markaa sacaadada guntaada ka raadi markaa qodobka saddexaad ay ka murgoodaan wuxuu ahaa inay sacaadada ka raadiyaan wax iyaga ka baxsan oo gudahooda aanay ka raadin taasina waxay yidhahdeen waa mid keentay in runtii sacaado aan weyno qodobka afaraad ay ka murgoodeen waxa weeyaan noloshoodii o dhan inay ku bixiyeen raadinta risiq iyo waxay ku noolaadaan noloshayadii o dhan waxaanu gelinan daba soconayoon inaan raadino risiq iyo waxaanu cunno iyo waxaanu ku noolaano taana aad bay uga murgoodeen waxay aada u jeclaayeen inay waqtigoodii geliyaan inay waqti la qaataan caruurtooda inay caruurtooda la farxaan waalidkooda la farxaan caruurtoodu markay faraxsan yihiina maalimaha gaarka ay la fadhiistaan caruurtooda la joogaan la ciyaaraan ay aada u tamaniyeen waxay aada uga xumaadeen noloshooda inay ku lumiyaan inay risiqun raadiyaan oo xataa marka qaar keensata caruurtooda inay ilaabaan oo waalidkoodii dadkooda ilaabaan oo maalmihii faraxa badnaayo soo maray waalidka caruurtooda aanay ka qeyb gelin iyagoo risiqa raadinaya dawada arrintaasna waxaa ka jirta weeyaan qof kastoo inaga inaga mid risiq buu raadinaya adduun umayn daba soconnaa waxaa laga yaabaa adduunka sidaad u raadinayso caruurtaada in tarbiyadoodii aad gabtay baa laga yaaba waxaa laga caruurtaada inaad kaba warhinba waxay qabanayaan waxaa laga yaaba waalidkaaga inaad dayacday baa laga yaabaa adiguna risiqu maad raadinaysaa 60 jir markaad gaadho maa lagu oranayaa caruurta way kaa xumaadeen bal maxaad ku soo rafaaday maxaad risiqa iyo intaasoo lacagta ururinaysay maxaad usoo ururinaysay haddii caruurtiiba kaa xumaadeen caruurtii kuu soo ducayn lahayd markaad dhimato ee walad saalax kuu noqon lahayd hadday kaa xumaadeen maanta maxay ku taraysaa lacagtaasi marka waxaa ka jirtaa in waqtigeena aynu in badan gelino risiqun inaan raadino qodobka shanaad ee yidhahda waanu ka murgonay waxa weeyaan waxay yidhaha waxaanu jeclaan lahayn inaanu qaadano runtii muqaamaraadka qaadano oonu waxaan ku riyoonano aanu gaadhno ayaan aada u jeclaan lahayn markaanu adduunka joognaan noolayn ee caafimaadkaanu qabnay haddii muqaamaraadka aanu qaadan lahayn oo runtii riskiga haddii aanu qaadan lahayn oo si aan u gaadhno ahdaafteeda haddii riskiga aanu qaadan lahayn oo runtii adventureska jira aanu qaadan lahayn waxa weeyaan meel baanu gaadhi lahayn laakiinse sidii aan uga baqanayna inaanu runtii uga cabsi qabnay inaan riski qaadno inaan meel halisa aanu wax ka raadino inaan ahdaafteedii xaqiijino wax kastaa ha dhacaane taas sidaan uga baqanaynay waxay keensatay inaan runtii muxuu ahaayey meel aananu gaadhin halkaa aanu taagana aan kusoo noqono marka qodobka shanaadii ka murgodan waa maxay waa inay qaadan waayeen riskiga qaadan waayeen si ay ahdaaftooda u gaadhaan waxay ka murgoodeen inaanay gaadhin wixii ay ku riyoonayeen maskaxdooda ku jiray in higsiga uu ahaa
ay naftoodu ka fikiraysay inaanay gaadhin sababta u gaadhina wax maxay ahayd cabsi ay ka qabaan arrintaa hadday galaan inay ku fashilmaan marka cabsidaasi inaanay qaadan oonay jeedhin iyadina way ka murgoodeen shantaa qodob daawada waxa weeyaan waa shanta qodob ee gabadhaasi ay sheegtay buuggooda ay ku qortay ay tiri dadkii aan la fadhiisay cusbitaalka ku dhimanayay waa shanta shay ay ka murgoodeen laakiinse mid baan aanu kugu daraya oo isle waa kagu muhiimsan qofku markuu dhimanayo ama xaaladda uga adag uu ku jiro aan isle waa qodobka koowaad uu ka murgoonayo kaasi waa maxay qodobka koowaad daawada uu ka murgoonayo qofka soo muslina waxa weeyaan inaad adduunka intaad joogtay camal saalix aanad soo samayn inaanad camal wanaagsan aanad samayn oo aakhiro waxba aanad u dhigan oo wanaagii camal saalix aanad u dhigan waa shayga koowaade ugu weyn ee qofka soo muslimi markuu dhimanayo maskaxdiisa kusoo dhacaysa kana murgoonaya haddaanu samaynin markaa daawada taa aynu awood maskaxda ku hayno intaasay kusoo koobayna wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu macalin intii u mudnayd adaa maraye adaa aflaxo aqoon dhigayo intii u mudnayd adaa maraye ammaaniyo adaa